بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلتي وعنا ونكسن دمان وضع الصومالية تقوم كستيو قول كستا جوكتان إلهي واحد كبر يا إبن داري عافمات يا عبادة الصوبة وبرنامج كان يفتمين تحقيقي كان مات اسكدوا التاجينو ما ملكي خاتمه السمادي حضلي يا سلطان عبد الكريم سلطان علي سلطان محمود علي الشراء oo isaguna maanta hadlay ninkii hulumbaha oo kaarkii ugu dambeeyay aanu ka gubnay waxaan ka codsanayaa barnaamijka dug soo gaaraya si share garashid hadii salaad ku joogtaan u soo tuko hadii kale nabi ku salli allahumma salli ala sayyidina muhammad waayahay waxaan qodobkayga koowaad ku dul istaagayaa oo aan rabaa inaan ku horeeyo laba ereyna ka iraahdo hadalkii garaad jaamac garaad cali iyo jawaabtii suldaan saciid suldaan cabdisalaan horta waa isimadayadii sharaf iyo karaamo iyo ixtiraam bay agtayada ku leeyihiin taladayna la leeyihiin tusaalahayna la leeyihiin ducadaanu ku leenahay taladayna la leeyihiin deegaankayna la leeyihiin odayaasheedii weeye isimadayadii weeye talada iyo tusaalaha wayna la wadaagaan ducadana waa ka qaadanaynaa hadalkii garaad jaamac garaad cali yiri iyo hadalkii suldaan saciid suldaan cabdisalaan ugu soo jawaabay labadooduba waxa ahaayeen laba oday oo isimaa oo waxa weeye deegaanka iyo dadka waxa weeye ulal amri u ah oo waxa weeye weedhoodii iyo hadalkoodii sidii wax ula muuqdeen sidii ay wax ula muuqdeen ka hadlay weeye balse mid baan rabaa inaan ku daro anoo ixtiraamaya isimadayada haduu ugaas yahay haduu garaad yahay haduu suldaan yahay haduu boqor yahay bal hadeegay haduu islaan yahay haduu beel daace yahayba isimadayada horta madaxay noo saaran yihiin waana noo karaamaysan yihiin taladana waxa weeye waxbay ku leeyihiin laakiin waxaanu nahay bini aadan ilaahay uumay cidna anagu xero ugu ma jirno ilaahay bini aadan uumay oo karaamaysan oo mustaqbal iyo nolol doonaya baanu nahay dhalinyarada deegaanada sool iyo sanaag iyo cayn degan mustaqbalkooda dhalinyaro wax baratay dad wax bartay dal waxa weeye barwaaqo baanu haysanaa taladeeda inaanu ka tashano aqoonyahanka siyaasiga fiican odayga fiican isimka fiican weeye waxa horta maanta la ascaanood loo fadhiyo anagu manihin dhaxal laga dhintay manihin bini aadan ilaahay uumay oo rabitaan leh baan nahay talada nala leediin ismadayadii baatiin sharaf baan agteeda ka leediin karaamaad leediin ducadiinaanu rabnaa inaan taabisaan baan rabnaa gacanta inaan qabataan baan rabnaa jidka toosan inaan nagu hagtaan baan rabnaa waana idinka filaynaa oo idinka sugaynaa war xun afkiina kama hayno khayr allah idin siiyo ducada nagu soo kaaba wixii aanu hagaajino oo aanu dhisno hadii wax naga khaldamaan na toosiya laakiin rabitaankayaga iyo waxa aanu doonayno iyo waxa dhalinyarada waxa weeye mustaqbalka ka baabay 30 sanadood baanu ku jirnaa dukum daakum ku jirnaa inta ka badan kuma jiri karno NF inta ka badan uma dul qaadan karno wixii aanu ku khaldanahay waa qaadanayna wixii aanu ku saxanahayna ducada noogu dara isimadayga intaasan oranayo waxa maanta isaguna hadlay oo aan rabaa maadaama aan qodobkana ka hadlayo qodobkii isimada suldaan cabdikariim suldaan cali suldaan maxamuud cali shire facka fac nin ku abtirsada saldanada guunka ee warsagay bal suldaanka hadalkiisi isimadu waa la kala aragti duwanaan karaa wuxuu yiri dhanka aan ka joogiyo dhinacaad ka joogta kala dhaabad weeyaan wixii adiga kula dhuuban baa aniga la dhumucay isimadayada waa wadanaa aflagaadayn mayno ay uma quurno karaamadooda kuma gafi karno madaxay noo saaray taladana waxbay ku leeyihiin bal suldaan cabdikariim oo maanta la ascaanood jooga kana mida gudiga 600 ee beelweynta maxamuud hartay waxa weeye hogaaminaya hadalkiisi wax yar aynu isdul taagno rabiic al-arab baa bilaabmay sidii uu ka bilaabmay Tunis oo Liibiya cuntay oo Bashaar Asad aakhirka cuntay Xusni Mubaarak cuntay Ali Abdullah Saalax cuntay marka odayaasha hadlay waxaan leeyahay guuga carabta baa socday iyo guuga carabta idin ku dhicin dhulka la iibsanayo dawlad baan u soo sameeynaa shaqadeeda qabsanaysa hadda macag oo dhan waa la iibiyay imaaraadka laga iibiyay niman Colombiana waa la keenay soo ceelay agaarkeeda la keenay raadaalada loogu rakibay horta isimadu iyaga wada hadlaya laakiin suldaanka waxa gaar ku ah oo ka hadlay lugooyada iyo dhibaatada Saciid Hulumba ku wado deegaanada waxa weeye sool iyo sanaag iyo bari iyo nugaal eegay iyo mudug waxa ka socda ayuu suldaanku ka hadlay suldaanku wuxuu sheegayaa deegaanadan iyo dhulkan sool iyo sanaag iyo cayn inaana ahayn dhul baylaha in waxa weeye inta calooshood shaqaystayaal Saciid Hulumbe
Colombian buu keensaday eelaboorka boosaaso deeqa waa qodan yahay hoostu ka qoday hangaraa ka furan waa tii Suudaan ka dacwoonaysay oo lahayd hanala ka qabto waxa weeye sicid khasaaro sicid hulumba hanala ka qabto oo caloosho shaqaystayaal baa eelaboorka boosaaso deeqa jooga suldaanku wuxuu ka hadlayaa masiirka ummadan inaan qofna loo daba fariisanayn 600 oo erga ah oo Maxamuud Hartiya balaadeegay ayuu hogaamiye u yahay waana Suldaan Cabdikariin Suldaan Ali Suldaan Maxamuud Garaad Ali Shiraw wa uhdi wi waa la kala dhaqaaqay kaar dambe oo la xoqanayo Saciid Hulumba ma jirto dhul dambe iyo deegaan dambe oo aad boobi doontaan ma jirto kaarkii ugu dambeeyay ee aad xoqatay ee isimada u soo barooratay eegay garaajama Garaad Ali iyo Suldaan Saciid aad u soo barooratay waa saldanadaydi waa garaadadeedii waa wasiyadeedii waa isimadeedii taladayna la leeyihiin tusaalahayna la leeyihiin haddaanu khaldanahay inay gacanta qabtaan bay leeyihiin wixii wanaagsan ee nagu booriyaan bal hanaga sugin هنجا سجن اسمه يدا إن على كهر نماذج صوت منافق باطل المنافق معروف وحق الدونيسي اسمه يحوي يدتك اسمه وين إن المدح يسوق رشيد واحد ربط الجرات كل أفلقات ديو سلطان كلا عايو بقر كلا أفلقات ديو جوجاس كلا ماجو عدنا إن على دافين بالدونيسي لكن دتك غير أساسي خاتمه ودت قاعد عقل بدل وادد وحوي soo jirena waadad wax bartay waa la soo dhaafay xilligii munaafiqiinta qabal baas bawdu Suudaan wuxuu yiri gugi carabta bilaabatay gugi carabta waxay waa gugi munaafiqiinta la soo afjar lahaa gugi munaafiqiinta la soo afjar lahaa way Saciid Hulumbow kaarkii kuugu dambeeyay soo garaajama Garaad Ali iyo Suldaan Saciid mahay wanaagay ka talinayaan sharafkayga rabaan annaga wax noo sheegayeen taladayna la leeyihiin tusaalahayna la leeyihiin khaladkayga inay qabtaan bay leeyihiin waa ismadayadii u gafimayno waa mahadsan yihiin balaadeegay wax wanaagsan bay ku hadleen laakiin aqoonyahankayga dhalinyarada siyaasiyiinta wax garadka caaqilada waa la tashaday waa laga tashaday eegay nin saano qof saa u horfadhiya dadka waa laga tashaday oo aan waxba reebin bog aan reebin waa laga tashaday balgar hadalka suldaanka aan ku socon الله سعدنا وحوي معادينته يدل كيجا يبضي أي الله سعدا سعد لاد الدولة الصومالية أي الله قلي أن لنا نجا عاوية عدود يو مامور يسكستا صدق هسنا الدولة الصومالية مغنيت إلى ميريسان كتيرني إلى ميرسدي والله جبحي مامور بديك الله سمينيا فلين بالله سمينيا كلا دبين بالله سمينيا نكسي هكو تلاقلو هكو تشلو نكي أن رالك هين ودك وينو كبحي هذا كمان ما ينقل صدّن سنادات شوك بيش هذه شوك صدّن سنادات جدار هنش لما مرين صدّ كاسرة بطلان شرتي جدار هنش لما مرين اسبتالله سياد بره كنسي وعوي دجاجة ده أيه كنسان وربوسا صدقة اسبتال كسياد بره كنسي وولي استعمالها هل وضو هل عيل هل اسبتال هل اسكول الله نسميشتو لا يصدق فريسان مايو سعيد هلومبو عيد عاد يبسطو يحلبانا عاد كو عوي عاد مقدشة لا عاد يانتي عاد بوبيد واسكو دماتي ديان كانوا واتشدي دad كانوا واتشدين كار كلامي ku haray wax daba miyay ku hareen ismadina Soomaal soo kicin maxaa ku haray baroor buu qabsaday Suldaan Saciido Garaad Jaamaco abaal baan oohin ismaduna waa soo fadhiisteen si wanaagsan bay u hadleen imma laakiin annagu manihin dhaxal manihin ismada yada sharafta leh inta waa inay fahmaan annagu dhaxal manihin annaga Ilaahay baan samaystay talada waxaanu idinku dhiibanay inaan waxa aanu doonayno oo saxan aan ugu taageertaan maamul baan rabnaa inaan dhisano maamulka sool iyo sanaag iyo cayn loo dhisayo nagu taageera bina aadan baanu nahay aragti baanu leenahay aqoonyahan baanu leenahay waxbaan rabnaa inaan qabsano dadkaan rabnaa inaan la mid noqono marka sidaa darteed noogu taageera intaas ay idin leeyahay qodobkayga labaad beesha Axmed Harti oo 450 erga ah magaalada Laascaanood ee gobolka Sool ee maamul goboleedka Khaatumo State u dirtay maamulkaas waa loo dhan yahay beesha Axmed Harti ee Moorcase oo waxa way gabtaanle iyo dishiishe anagu waa dhannahay anagu Axmed Harti hadaanu nahay saan u dhamayn meesha waa joognaa bal ergadii Axmed Harti iyo ugaasadii hadlaya waa kuna iyaga la dhigta wala kala adkaaday
si toos ah loo kala adkaaday wallaan la soo saarnaanayn iyo biliyo tolle dheego beelaha Axmed Harti ka kooban jeelle gabtaanle dishiishe iyo maganlabe waxaan u nibay oo halka cadeynayna inaan u nibay maamulka SCC Khaatumo oo hadda 2 sano ku meel gaar ah soo maray oo maanta raba inuu ka baxo ku meel gaarkii oo laga dhigo maamul dhammaystiran oo ku meel gaarka ka baxa lagu midaysan yahay waa lagu midaysan yahay waa ergadii beelweynta Axmed Harti oo dhammaantood magaalada Laascaanood jooga 450 erga ah ayaa magaalada Laascaanood joogta Axmed Harti iyo 600 oo Maxamuud Harti beelihii kale sida Fiqishini dirti dhulbahante waa la dhan yahay waxa kale oo intaas sii dheer ambassadorkii iyo wasiirkii hore ee waxa weeye qorsheynta qaranka Soomaaliyeed wasiir Jamaal ambassador Jamaal oo isaguna goor dhow ka soo degaya magaalada Laascaanood waa musharax madaxweyne waa soo dhaweynayna soo dhawo ambassadore reer Laascaanood iyo reer Khaatumo waxaan leeyahay ninkaas waa nin goba ninkaas wuxuu ku fakarayay xilligii aan wada shaqaynaynay farmaajo iyo dawladii nabad iyo nolol wasiir Jamaal wuxuu ahaa ninkii keenay in maamulka Khaatumo state la dhiso xilliga duruufo jira awgeed iyo Xasan Ali Khayre iyo adigu waxa way culays baa jiray marka sidaa darteed waa la baajiyay waa 2017 ayuu wasiir Jamaal ku fakarayay in la sameeyo maamul ee Khaatumo state sababtoo waa nin indheergarada wax badan buu arkay ninka ragga limintiisa waxa way lama qariyo xaasha leebiyo nin liminka xastay xumihii waayab wasiir Jamaal 2017 ayuu ku fakaray maamulka Khaatumo state in la dhiso waana nin u qalmay inuu madaxweyne ka noqdo soo dhaweeyay ambassadorka insha Allah bari buu ka soo dagayaa warqadiisina waatan warqadii uu waxa way ku cadeynay inuu yahay madaxweyne u sharaxay maamulka Khaatumo state warqada soo saaray ambassadorku wasiir Jamaal soo dhaweeya waxa way gobonnimo ka dhacday gobonnimo ka socota Laascaanood foga meelan jooga goor dhow waan imanaya insha Allah biidnillaahi kariim Laascaanood baan ka soo dagayaa Laascaanood oo gobonnimo taal oo sharafi taal oo calankii buluuga ay waxa way ka babanayo oo maamul waxa way administration iyo nidaam iyo waxa way kala dambeyn leh oo waxa way maamulkii Khaatumo state insha Allah biidnillaahi kariim maalinka la dhameystirayo madaxweynaha la dooranayo Laascaanood waa jooga hadana nafta waayin insha Allah biidnillaahi kariim ismadeeda sharafta leh karaamada leh waad maasantiin anaga ismadeedii baatiin uqaasheedii baatiin madaxdeedii baatiin laakiin waa tashanayna wixii wanaagsan aanu idin nimaadno ducada noogu dara Saciid Hulun baa soo haray soo maaha iska celinayna Saciid Hulun baa iska celinayna waxaan kala rabaa dad badan baa waxay u soo qoriyeen boodhari Xasan baa taageertay waraniga Xasan iyo Dani waa isku kamid Xasan iyo Dani aniga waa isku kamid laba tug baan u aqaanaa ima dawladnimada calanka buluuga caasimada dalka dawladnimada cid iyo xigtaan jirin Xasan baan iga xigin meeshu ka darsadaan ka darsanaya maamul baan ku dhisay isagu waa cunay Xasan munaafiqiintiisa waa cunay laakiin inteeda maamul baan ku dhisanaya xaqna waa u leeyahay nin number 2 gamay macnaheedu ma noqonayso Saciid Hulun bay iyo Xasan munaafiqada is qabteen eegay waxa way hal dudo afka hal taago Muqdisho laga dudi maayo Muqdisho waa caasimadii Muqdisho waa meesha Saciid khasaaro u socdo yaa ka aqal xun war Hulun be Saciid Hulun yaa ka aqal xun meesha u socotid baa la hayo la tagi kaarkii kugu dambeeyay maanta aanu gubnay ismadiina intaanu dhageysanay oo samcan wadaacan niri suldaan soo dhawow garaad soo dhawow war fiican baad ku hadasheen insha Allah bilan waxaanu soo goosano baanu idin imanayna ismada Harti iyo Daarood iyo Soomaalina waxaan u sheegayaa wixii wanaagsan taageera dadku dhaxal ma aha xoolo ma aha dadku annaga dhaxal nolol ka dhintay ma nihiin dad nool baan nahay wixii wanaagsan aanu leeynaado ducada noogu dara khayr iyo baraka dir jiray war barnaamijkaasi share garay tan waa isbaratay la kala adkaa waa la kala adkaado oo Ilaahay iga sareeya Jamaal wasiir Jamaal ta kaga dhacday Puntland bariga dhawaatii lagu sameeyay ninka isagoo xildhibaan doonaya baa afar iyo laba la isugu celi oo suldaankiisa laga horkeen war wallaan dibna la ku iibsanayay biliyo tol niyo ayaar ba ku jirtaan
نردبنا لو يبسن ما ينقل سعيد هلومبي هذا نقدر نقبوت ورسل إلى ودينا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.